daawadayaal subax wanaagsan kuna soo dhawaada markii barnaamijkan arrimaha siyaasadda ee garqaadmida qodobada wararka aan ku soo qaadan doonana waxa ugu waaweyn shirka iskaashiga dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa waxa uu saaka ka furmay magaalada Boosaaso iyadoo ilaa hadda ajendaha shirkaas si rasmi ah loo ogeyn. dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan Villa Soomaaliya waxa ay ka hadashay cabashadii hooyana Amran Maxamed Cusmaan oo gabadheedu sheegtay inay haystaan ciidamada ilaalada ee Villa Soomaaliya. guddiga doorashada garabka madaxweyne xaafna saacadaha soo socda waxay ku dhawaaqi doonaan qorshayaashii ugu dambeeyay ee doorashada garabka xaaf iyadoona ay ku dhawaaqi doonaan jadwalkii kama dambaysta iyo waliba arinta xiritaankii loo geystay Cabdikariin qalbi dhagax oo meel xasaasi ah marayso isla markaasna waraysigii uu bixiyay gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahina uu arrimo badan loo kashay iyo hogaamiyaha ruuxiga Iiraan oo si adag u difaacay militariga dalkaasi Iiraan. qodobadaas iyo waliba qodobo kale xasaasi ah oo barnaamijkeena saaka ee garqaad ku soo qaadan doonaa iyo waliba wararkii ugu dambeeyay olaha doorashada madaxweynaha ee deegaanadaasi Galmudug. haddii kulana faahfaahinta daawada waxaa goordhow ka furmay magaalada Kismaayo shirka magaalada Boosaaso ee shirka iskaashiga dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland kaasoo looga hadlay arrimo kala duwan oo quseeya labada dowlad goboleedyo iyo waliba arrimo kale. madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa si wada jir ah shirka uga furay madaxtooyada Boosaaso. ajendaha looga hadlay shirka ayaa waxaa ka mid ah arrimaha siyaasadda, amniga, dhaqaalaha, arrimaha dib u eegista dastuurka sharciga petroolka iyo waliba doorashada 2020 ilaa 2021. shirka ayaa waxaa la filayaa in looga dhawaaqo dhismo guddi laba dowlad goboleed oo ka shaqeeya sii xoojinta iskaashiga labada dhinac. khilaaf dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa qayb ka mid ah xiisadda siyaasadeed ee dalka ka jiray labadii sano ee u dambeysay, mana jirin xal loo helay iyadoo uu hakaday wada shaqeyntii dowladda federaalka iyo waliba dowlad goboleedyada. dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland ayaa ah laba maamul oo xiriir soo leh isla markaasna mar walba isku siyaasad ah, waxaana kulankoodu ku soo aadayaa xilli dalku galayo xaalad kala guur ah oo kusoo fool leeyihiin doorashooyinka baarlamaanka iyo waliba midda madaxtooyada. iyadoona uu hore u sheegay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in aysan jirin wax xal ah oo u dhaxeeya dowladda iyo waliba kuwa maamul goboleedyada. waxa uuna dacwad ku aadan arrintaasi u gudbiyay sidoo kale safiirada beesha caalamka u jooga gudaha Soomaaliya, uu ka mid yahay safiirka Mareykanka iyo waliba kan UK iyo kan qaramada midoobay joogay gudaha Soomaaliya. Dani ayaana waxa uu ilaa hadda uusan tegin gudaha magaalada Muqdisho doorashadii loogu doortay madaxweynaha maamulka Puntland oo muddo sanad laga joogo. waxa ayna arintu ay tahay mid cakiran maadaama dalku galay xilli kala guur isla markaasna aan la isku waafaqin ilaa hadda doorashada dalka iyo waliba noocay noqonayso. ilaa haddana aysan wada fadhiisanin madaxda maamul goboleedyada iyo waliba kuwa dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, taasoo ka sii fogeynayso arinta ku aadan doorashada dalka iyo waliba in la isku raaci doono waxyaabaha ku aadan qaabka doorashada dalku u dhici doonto. inkastoo ilaa hadda dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsaneen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo doorashadii ka dhacday Kismaayo ay sheegeen inay tahay mid baalmarsan sharciga iyo waliba ajandihii loo dejiyay, ayna ilaa hadda dowladda federaalka Soomaaliya wax go'aan arrintaas ay ka soo saareen sidoo kale, taasoo iyadana sii riixaysa xiriirka dhinacyada ah ee dowladda iyo waliba kuwa maamul goboleed. madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hadashay cabashada hooyo Amran Cusmaan oo sheegtay in gabar ay dhasho 16 jir ay haystaan ciidamada ilaalada madaxtooyada. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdinuur oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in baaritaan ay ku sameynayaan cabashada hooyo Amran. waan maqalnay qeeladhaanta hooyo Amran oo ilaa shalay baraha bulshada lagu faafinayay, waxaana xiriir la sameynay maxkamadda kiiska gacanta ku haysa xeeraryaha dacwadda soo oogay iyo waliba madaxda askarta la eedeeyay ayuu yiri. waxa uuna sheegay in sida wax u jiraan iyo sida wax loo tabinayo ay kala fog yihiin sida uu hadal ku dhigay. waxa ay muuqata buu yiri in baaritaan daahfuran loo baahan yahay si loo waafajiyo cabashada hooyada iyo waliba aragtida ay qabaan qaybaha kala duwan ee kiiska uu ku lug leeyahay. xoguna sida qolo walba ay u tabinayso waa wax kala fog. inta taasi lagu xaqiijinayo waxaa habboon in laga fogaado buunbuuninta wararkan hubinta u baahan. barbaahintuna waa inay dheelitir ku sameysaa waxa ay bulshada la wadaagayso sida aan loo sii abuurin jahwareer kale, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey.
waxa ayna hooyadan sheegtay in gabar dhashay oo ay ka keento qurbaha oo 16 jir ah ay haystaan askarta ilaalada madaxtooyada, iyadoo sheegtay in gabdhihii kale iyada la socday ay la sii daayay balse iyada ilaa hadda ay maqan tahay. walow muuqaalo shalay uu sii daayay TV-ga qaranka SNTV oo looga hadlayay arrintaasi, jawaabna u ahayd cabashada hooyadaas ay ka duwaneed taasi, iyadoona muuqaalka SNTV barnaamijka laga sii daayay uu kasoo muuqdeen gabar ka mid ah gabdhihii la sheegay inay gabadhaasi la socotay, islamarkaasna sheegtay in gabadhooda ay kasoo baxsadeen ilaa iyagoo 7 gabdhood ah meel lagu sheegay inay ahayd meel iyaga lagu xanaaneyn, islamarkaasna ay ku jireen oo ay sheegtay in gabadhaasi rabtay inay dalka dib u laabto ee ka imaatay, islamarkaasna ay safaaradda ee dalkaasi ay ku daacaweynayso hooyadeed, islamarkaasna sida ay sheegtay gabadhaasi ay rabtay inay dib u laabato. dhanka kalena sida ku cad jadwalka doorashada ay soo saareen guddiga farsamada madaxweynaha maamulkaasi ee galmudug Axmed Ducali Gelle Xaaf oo ku dhawaaqay magaalada Gaalkacyo 10 oo maanta ku eeg ayaa la shaacin doonaa xildhibaanada galmudug garabka ee Gaalkacyo u yeelan doona. xubno ka tirsan guddiga farsamada ayaa inoo sheegay in qorshaha lagu soo xulayo xildhibaanada labaad ee galmudug uu yahay mid la diyaariyay, islamarkaasna maanta lasoo gabagabeyn doono. sidoo kalena waxay sheegeen in 20 bishan loo dhaarin doono xildhibaanada lasoo xuliyay, islamarkaasna 25 bishan la dooran doono guddoonka baarlamaanka ee maamulka galmudug. dhanka kalena waxay sheegeen in la diyaariyay qorshaha doorashada madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka ee galmudug, waxayna arrintu tahay mid meel gabagaba maraysa, islamarkaasna la rabo in lagu buriyo midda maamulka kale ee isaga laga soo dhisay magaaladaasi Dhuusamareeb. madaxweyne Xaaf ayaana waxa uu wadaa qorshayaashiisii ugu dambeeyay ku aadan sidii mar kale loogu sharxi lahaa madaxweynaha maamulkaasi ee galmudug. dhanka kalena kiiskii oo horey loogu galay ahaa in Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax loo dhibay dalka Itoobiya ayaa mar kale waxa uu yeeshay wajiyo cusub iyo weliba in mar kale wareysyo cusub oo la qaaday ay muujinayaan in arrinta kiiskii Qalbi Dhagax uusan noqonin mid la ilaawaan ah. Qalbi Dhagax oo ay dowladda federaalka Soomaaliya u dhiibtay dalkaasi Itoobiya muddo hadda laga joogo 2 sano ka hor ayaa waxa ay ka dhalatay in aad looga hadlay, islamarkaasna uu muddo ku xirnaa gudaha dalka Itoobiya. Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo uu soo daayay wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa wixii intaasi ka dambeeyay waxaa laga hadlayay ama uu wareysiyo bixiyo ku sheegay qaabkii loo dhiibay iyo weliba cidda dhiibtay, iyadoona uu sheegay in mas'uuliyadda dhiibitaankiisa ay korka ka saaran tahay madaxweynaha dalka iyo weliba wasaaraha. wareysi uu bixiyay dhowaan gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa uu ku sheegay qaabkii loo dhiibay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyo weliba arrinta ku aadan dhiibistiisii. waxa uuna sheegay sida ay ku soo gaartay isaga in loo keenay baasabooro iyo weliba waraaqado lagu sheegay in uu leeyahay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax, isla markaasna ay ahaayeen dokumentiyo dalkaasi Itoobiya oo una codsanaya in loo celiyo dalkaasi Itoobiya. waxa uuna sheegay wixii intaasi ka dambeeyay in aysan waxba ka ogeyn dhiibistiisa iyo weliba halka uu ku dambeeyay oo kaliya ka wareereen warbaahinta in Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax loo dhiibay dalka Itoobiya, taasoo ku sheegay inay ahayd mid khiyaamay, isla markaasna uu dusha ka saaray mas'uuliyaddaasi in uu lahaa taliyihii hay'adda sirdoonka qaranka markaasi mudane Cabdullaahi Maxamed Sanbalolshe oo markaasi ahaa taliyaha NISA. waxa uuna sheegay in uu u imaaday Sanbalolshe oo wada dokumentiyadaas iyo weliba kuwo kale oo uu sheegay in uu u baahan yihiin ama ay ogeysiinayaan in uu jiro Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo codsanaya in dib loogu celiyo dalka Itoobiya. waxa uuna yiri wixii intaas ka dambeeyay wax aan war aan keenaysan jirin, balse Qalbi Dhagax oo wareysiyo badan bixiyo kana hadlayay dhiibistiisa ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay ahayd mid been abuur, isla markaasna aysan waxba kama jiraan ay ahayd, oo uu sheegay inay tahay mid looga gambanayo dhiibistiisii. ugu dambeyn hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa difaacay militariga dalkaasi kadib markii dhowaan xukuumadda Tehran ay qiratay in diyaaradii rakaabka ee Ukraine ay si ula kac ahayn loo soo riday. waxa uuna sheegay in ciidamada kacaanka ee ka dambeeyay masiibadaasi ay ilaaliyeen amniga Iiraan. Ayatollah ayaa maanta salaada Jimcaha dadweyne ku tujiyay gudaha magaalada caasimadda ee Tehran markii ugu horeysay muddo 8 sano ah.
malaayiin iiraaniyana iyo weliba kumanaan ciraaqiyiin ayaa u baroordiiqay dilka jenaraal qaasim suleymaani kaasoo lagu dilay gudaha dalkaasi ciraaq xilli uu kasoo degay garoonka baqdaad. waxaana dilka mas-uuliyadiisa sheegtay dowladda mareykanka oo ay sheegtay inuu ahaa nin halis ku ah amniga mareykanka iyo weliba midda gobolka, taasoo ka dhalatay in iiraan ay gantaalo ku ridaan saldhigyada mareykanka uu ku leeyahay gudaha dalkaasi ciraaq, taasoo galaafatay in diyaarad laga leeyahay dalkaasi Ukraine oo hawada dalka Tehran maraysay xilligii gantaalada la riday, taasoo haleeshay mid ka mid ah gantaaladii lagu ridayay xarumaha mareykanka ku leeyahay gudaha dalkaasi ciraaq. intaas ayaanu kusoo gabagabaynayna warkana subaxnimo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.